Ramadaan Mubaarak wacan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena wararka isha sirdoonka oo aanu maanta ku eegayno qaybtii lixaad ee kobcii islaamiyiinta Soomaaliya gaar ahaan dacwadii Ikhwaanul Muslimiinka Masar ee Soomaaliya. Ikhwaanul Muslimiinka Masar waxaa aasaasay Xasan al-Banna oo ku dhashay tuulada Maxamuudiya ee dalka Masar 14 Oktoobar 1906. Ismaaciiliya ayaa lagu aasaasay Ikhwaanul Muslimiinka 1928. Xasan al-Banna waxa uu sheegay in ikhwaanku aaminsan yihiin qodobadan in ahkaamta islaamku tahay kuwa saameyn guud ku leh nolosha insaanka aakhiro iyo adduunyaba, sidoo kale in islaamku yahay caqiido iyo cibaado, dal iyo dad, diin iyo dawlad, kitaab iyo seef, iimaan iyo shaqo. Xasan al-Banna waxa uu sheegay yoolka ikhwaanku hiigsanay oo uu ku fasiray dacwad salafi ah, dariiqo sunni ah, suufiyad caqiido ah, hay'ad siyaasi ah, koox ciyaartooy ah, shirkad dhaqaale, urur waxgarad ah iyo cilmi urur bulsho. Sodomeeyadii qarnigii tagay caalamka islaamka waxaa caan ka ahaa Ikhwaanul Muslimiinka oo door weyn ku yeeshay soo nooleyntii baraaruga dacwadda. Xilligaasi islaamka iyo dadkiisuba gacanta u galeen quwadaha reer galbeedka, waxayna wadamo badan oo islaam ah ka hormarinayeen baraaruga diintooda tan wadaniyada qowmiyadda. Soomaali waxbarasho ugu kictintay Masar iyo Suudaan ayaa dalka dib ugu soo laabtay lixdamaadkii iyaga oo xambaarsanaa aragtidii Ikhwaanul Muslimiinka Masar, waxaana la arkayay bilowgii kobcii islaamiyiinta Soomaaliya oo la buddigayo. Al-Nahda al-Islaam ayaa la aasaasay 1967 iyadoona door ku lahayd kaalintii ikhwaanka Soomaaliya. Sida uu qabo Ustaad Cabdiraxmaan Baadiyo waxa uu yiri ikhwaanku raad ayay ku lahaayeen baraaruga dacwadda. waxaa cadayn u ah ayuu sheegay in Sheekh Axmed Cabdalla Riiraash uu ka aasaasay magaalada Hargeysa kontomaadkii Madrasatul Al-Falaax oo ahayd goob lagu barto afka Carabiga iyo diinta, waana halka salka u noqotay ikhwaanka waqooyiga Soomaaliya. Sayd Qutbi waxa uu ka mid ahaa mufakiriinta ugu waaweyn ikhwaanka Masar. waxa uu ku dhashay tuulada Mooshe ee Saciidka Masar 1906. waxbarashada waxa uu ku qaatay Daarul Culuum. Isku fasal ayay ahaayeen Xasan al-Banna aasaasihii Ikhwaanul Muslimiinka. waxbarashada jaamacadda ayuu dhameeyay waxa uuna u shaqeeyay dawladda Masar xilligaasi xukumaysay. 1948 ayaa aqoon kororsi loogu diray dalka Mareykanka. Sayd Qutbi waxa uu ahaa qoraalkiisa iyo doodihiisa aad u soo jiiteen akhristayaasha. waxa uu wax ku qori jiray wargeysyada ugu caansanaa xilligaasi dalka Masar. Sayd Qutbi dilkii Sheekh Xasan al-Banna 2 Diseembar 1949 ayaa raad ku reebtay. dilkaasi waxaa lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay Boqor Faaruq oo waqtigaasi xukumayay Masar. ku soo noqoshadii dalkiisa hooyo ayuu dib ugu bilaabay shaqadii dawladda, waxa uu ahaa cilmi baare u shaqeyn jiray wasaaradda waxbarashada dalka Masar. waxaa la xiray 1954 muddo ayuu xirnaa ku dhawaad 10 sano. waxaa la soo daayay 1964 dadaal uu sameeyay Cabdisalaam Caarif madaxweynihii hore ee Ciraaq. mar labaad ayaa la xiray 1965 iyadoo Sayd Qutbi markii dambena la daldalay. waxaa ugu caansanaa kutubtiisa Macallin calaa dariiq oo aad ugu dhaliilay bulshadii islaamka ee waqtigaasi jirtay. buuggaasina waxa uu muuqanayay mid u horseedayay muslimiinta caalamka kacdoon xagga fikirka ah. wuxuu kaloo qoray tafsiirkii fi dalaal quraan. inta badan Ikhwaanul Muslimiinka waxa ay ku hirtaan qoraaladiisa iyo kutubtiisii uu qoray. Sheekh Maxamed Macallin ayaa waraysi idaacadda BBC-du la yeelatay 1994 waxa uu kaga waramay siduu uga xumaaday dilkii Sayd Qutbi. waxa uu yiri xilligii la daldalayay Sayd Qutbi anigu waxaan ku sugnaa Masar oo aan wax ka baranayay, aad ayaana uga xumaaday dilkiisa. waxaanu uu ahaa shahiid. ayaamahaas la daldalayay ayaan waxaan akhrin jiray buug uu qoray oo la oran jiray Jaahiliyatul Qarnul 20. sidaasi ayuu yiri Sheekh Maxamed Macallin oo waraysiisay idaacadda BBC-da 1994. waqtigii kacaanku Soomaaliya ka dhashay waxaa bilowgii jiray marxalad koobnayd oo isfaham u dhaxeeyay ikhwaanka Soomaaliya iyo xukuumadii kacaanka. waxaa kadib soo shaac baxay isasaluug u dhaxeeyay, waxaana xoogeystay shakiga labada qolo. dhalinyarada Soomaaliyeed ee ay saaqday dabaysha saxansaxada ikhwaanka ayaa korodhay, waxayna si qarsoodi ah u aasaaseen xarakada al-ahli al-islaam. shakina kuma jirin in dhabaha hanaan socodkeedu in uu ahaa midka ikhwaanka.
Ustaad Cabdiraxmaan Baadi oo ka jawaabaya su'aashii hore waxa uu yiri waxaa xusid mudan in bilowgii Islaamiyiinta Soomaaliyeed uu sal u ahaa fikirka Ikhwaanul Muslimiinka. Saamaynta ugu weyn waxa lahaa kutubtii Ikhwaanka ee maktabadda wasaaradda diinta ay dhigeen Sheekh Cabdiqaadir Maxamed Axmed iyo Sheekh Axmed Garyare oo ka tirsanaa Ikhwaanka. waxaa kale oo door weyn lahaa tafsiirkii Sheekh Maxamed Macallin ee ku salaysnaa fi dalaal Quraan ee Sayyid Qudbi masjidka Sheekh Cabdiqaadir uu ka akhrin jiray. Ikhwaanka Soomaaliya waxay ku doodeen inay buddigayaal u ahaayeen dacwadda iyo baraaruga Soomaalida, balse Soomaalidu waxay diintu soo gaartay hijriyada ka hor. Daawadeel intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybtii 6 ee kobcii Islaamiyiinta Soomaaliya. Fadlan la soco qaybaha dambe.